ninkan magaciisu wuxuu ahaa inuu noqdo Todd Thomas, balse waalidkiis ayaa qalad sameeyey oo diiwaan geliyey magaca Odd Thomas. Ereyga Odd wuxuu la macno yahay qof yaab leh ama aan caadi ahayn, balse magacaas si fiican ayuu ugu habboon yahay. Hooyadii Odd waxay ku dhalatay awoodo ruuxi ah, balse ma awoodin inay xakamayso. Ugu dambeyn waxaa la geeyey isbitaal dadka dhimirka qaba. Oddna wuxuu ka dhaxlay hibadaas. Mar walba wuxuu isku dayaa inuu u ekaado qof caadi ah, balse weli dadka wuxuu ula muuqdaa qof yaab leh. Odd dhab ahaantii wuxuu leeyahay awoodo badan. Marka koowaad wuxuu arki karaa ruuxyada dadka dhintay. Way socdaan, way dhaqaaqaan, balse ma hadli karaan. Marka labaad wuxuu arki karaa makhluuqyo hufan oo u eg had. Waxaa la yiraahdaa botox. Makhluuqaadkani waxay ka yimaadaan adduun kale. Waxay jecel yihiin urta cabsida iyo dhimashada. Meel kasta oo ay ka muuqdaan, dhimasho ayaa badanaa soo socota. Marka saddexaad, mararka qaarkood wuxuu riyooyinkiisa ku arkaa dhimasho ka hor inta aysan dhicin. Subaxan Odd wuxuu arkay ruuxa gabadh la yiraahdo Benny. Iyadoo Benny hagayso, Odd wuxuu helay dilaa. Dilaaga magaciisu waa Harlo. Harlo ayaa dilay Benny. Harlo damiirkiisa ayaa dhibaya. Odd wuxuu ku yidhi hal erey oo cabsi geliyey. Markaas ayuu cararay, balse ugu dambeyn Odd ayaa qabtay. Magaalada waxaa jooga 3 booliis oo muhiim ah. Midkood waa Chief Wyatt Porter. Isaga iyo Odd waa saaxiibo wanaagsan, wuxuuna og yahay in Odd leeyahay awoodo gaar ah. Markan Chief Porter ayaa Harlo kaxeeya. Labada kale waa Officer Burn iyo Officer Simon. Waa dhalinyaro kulul oo degdeg u xanaaqa. Markii ay dilaaga ka haynayeen si qarsoodi ah ayay u garaaceen Harlo. Hadda Benny waxay ugu dambeyn heshay wixii ay rabtay. Ruuxdeedu si tartiib ah ayay u libdaa, waxayna u gudubtaa nolol kale. Habeenkii Odd wuxuu ku riyoodaa riyo kale. Dad badan oo aan wajiyo lahayn ayaa ku hareeraysan. Waxay ka baryayaan inuu badbaadiyo. Dhammaantood waxaa tooganaya nin hubaysan. Dadkan aan wajiyada lahayn waxay xirnaayeen dhar leh astaanta goob kubatuurka. Waxay u eg yihiin shaqaalaha goobta bowlinka. Odd wuu yaabay, kadibna wuxuu arkay botox aad u badan oo magaalada ku faafsan. Makhluuqyadani waxay quutaan dhimashada. Waxay ka soo muuqdaan oo keliya meel qof ku dhiman doono. Odd ma arkin tiro intan leeg sanado badan. Hadda si lama filaan ah ayay magaalada oo dhan ugu baahsan yihiin. Masiibo weyn baa soo socota. Odd wuxuu leeyahay gabar uu saaxiib la yahay tan iyo caruurnimadoodii. Magaceedu waa Stormy. Stormy waxay la qabsatay dabeecadaha yaabka leh ee Odd, waxayna rumaysan tahay in awoodihiisu dhab yihiin. Dhowaan Stormy waxay ka furtay dukaan jalaato oo u gaar ah Grand Mall. Labadoodu waxay banaanka fadhiyaan iyagoo wax cunaya oo sheekaysanaya. Si lama filaan ah, Odd wuxuu arkay macmiil leh timo yaab leh. Waxay u eg yihiin boqoshaa ka baxday madaxiisa. Magaciisa dhabta ah waa Bob Robertson, balse Odd si qarsoodi ah wuxuu ugu yeeraa Fungus Bob. Waxaa kasii cabsi badan ayaa ah in botox aad u badan ku hareeraysan yihiin. Taasi waxay ka dhigan tahay in dil weyn dhowaan ka dhici doono agtiisa. Odd wuxuu dareemayaa wax aan caadi ahayn, sidaas darteed si qarsoodi ah ayuu ula socdaa Fungus Bob. Wuxuu raacaa ilaa gurigiisa. Muddo kadib Fungus Bob guriga ayuu ka baxaa. Odd wuxuu ka faa'iidaystaa fursadaas oo gudaha ayuu galaa. Waxa ugu horreeya ee indhihiisu qabtaan waa saxanka dambaska ee miiska saaran. Waxaa ka buuxa hadhaaga sigaarka, waxaana ku jira 3 ama 4 nooc oo kala duwan. Waxay u muuqataa in Fungus Bob inta badan martigeliyo 3 ama 4 saaxiib. Odd wuxuu sii galaa guriga. Wuxuu helaa qol qarsoon oo cabsi leh. Hawadu aad ayay u qabowdahay. Meeshani uma eka meel dunidan ka tirsan. Daqiiqada kadib kooxo badan oo botox ah ayaa ka soo baxaya. Waxay u muuqataa in meeshani tahay albaab jahannamo. Botoxku waxay u muuqdaan inay adduunkeena ka soo galaan halkan. Markii ay dhammaantood baxeen, qabowgii waa joogsadaa. Qolkiina sidii caadiga ahayd ayuu ku noqdaa. Odd gudaha ayuu u galaa si uu u baaro. Wuxuu darbiyada ka helaa sawirro cabsi leh iyo faylal badan oo ku saabsan dilayaal iyo xasuuqyo. Waxay u muuqataa in Fungus Bob yahay dilaa waalan oo qorsheynaya xasuuq weyn. Maalintaasna waxay u badan tahay inay tahay beri. Odd wuxuu rabaa inuu sii baaro, balse qof ayaa guriga ku soo noqda. Wuxuu ku qasbanaadaa inuu daaqada ka baxsado. wuxuu ku sigtaa in eyga arxan daran ee Fungus Bob qaniino. Kadib markii uu baxsado, Odd wuxuu u arkaa Fungus Bob mid aad looga shakisan yahay. Wuxuu isla markiiba u sheega Chief Porter, wuxuuna ka codsadaa inuu si dhow ula socdo. Officer Burn ayaa maqla arrintan, wuxuuna maskaxdiisa ku yeeshaa qorshe kale. Maadaama Chief Porter diyaarsan yahay, Odd wuxuu go'aansadaa inuu yara nasto. Isaga iyo Stormy waxay u baxaan dalxiis saqafka kiniisadda Stbarts. Si lama filaan ah, Fungus Bob ayaa si xanaaq leh ugu soo orda. Odd iyo Stormy waxay si degdeg ah ugu dhuntaan qol ku yaala kiniisadda. Fungus Bob ayaa dabagala, wuxuuna burburiyaa meesha oo dhan. Wuxuu jebinayaa albaabada iyo darbiyada, laakiin Fungus Bob uma muuqdo nin caqli badan. Ugu dambeyn ma qaban karo. Odd wuxuu mar kale wacaa Chief Porter. Markii uu yimaado, wuxuu arkaa qolka oo dhan oo burbursan, laakiin wax la yaab leh ayaa jira. Hal farood oo Fungus Bob ah lagama helin goobta. Wax raad ahna ma jiro. Kadib Chief Porter wuxuu u diraa Officer Simon inuu la shaqeeyo Odd, laakiin Simon ma rumaysna Odd. Odd wuxuu yidhi Fungus Bob ayaa weeraray. Simon wuxuu u muuqdaa mid aad ula yaabay, sidii qof ruux arkay. Waxaad moodaa inay suurtogal tahay in Fungus Bob qof weeraro, sidaas darteed Simon sidan uma yaabi lahayn. Markii sheekadu sii kululaatay, Stormy ayaa mawduuca bedeshay. Waxay Simon weydiisay waxa uu ka dhigan yahay tatooga Bod ee gacantiisa ku yaal. Simon wuxuu sharxay inuu yahay tatoo uu samaystay markii uu yaraa. Wuxuu yidhi Bod waa soo gaabin qalafsan. Arrimuhu waxay noqdaan kuwo sii murugsan. Odd iyo Stormy ma doonayaan inay sii hadlaan. Way jeestaan oo iska tagaan. Habeen dambe, Odd iyo Stormy way isdhunkanayaan oo iskoolkoolinayaan. Si lama filaan ah, waxay maqlaan qaylo haweenay meel fog ka yeedhaysa. Gabar ayaa 2 ey oo arxan daran si xun u weerarayaan. Dhulka ayay ku dhacdaa, waxba iskama difaaci karto. Markii Odd gaaro goobta, nin madax bidaar leh oo la yiraahdo Kevin ayaa sidoo kale soo orda. Wuxuu toogtaa 2 ey, balse aad ayuu u daahay. Gabadhii hore ayay u dhinimatay. Magaceedu waa Lete. Odd wuxuu gartaa 2 ey. Waa kuwii guriga Fungus
fungus pop joogay sidaas darteed wuxuu mar kale ka codsadaa Chief Porter inuu si dhow ula socdo fungus pop od wuxuu ku noqdaa gurigiisa wuxuu dareemayaa in qof ku jiro musqusha runtii meydka fungus pop ayaa yaala barkada qubayska markuu taabto meydka wuxuu ogaadaa wax muhiim ah jidhku wuu adkaaday wuuna qabow yahay uma eka qof hadda dhintay waxay u muuqataa inuu muddo hore dhintay isla markiiba wuxuu xusuustaa weerarkii kiniisadda Stormy weligeed ma arkin fungus pop Chief Porterna wax faro ah kama helin goobta hadda od wuxuu fahmayaa xaqiiqada fungus pop muddo hore ayuu dhintay wixii kiniisadda kusoo weeraray waxay ahaayeen ruuxdiisa caadi ahaan od waa inuu booliiska waco laakiin fungus pop waxaa lagu dilay koriyaala guriga od qof ayaa si cad u doonaya inuu dembiga dusha uga tuuro haddii uu booliiska waco isaga ayaa la xidhayaa markaasna ma jirayo cid joojin karta xasuuqa beridigi doona sidaas darteed od waa inuu meydka qariyaa laakiin dhibaato cusub ayaa soo baxda maadaama fungus pop hore u dhintay isaga ma noqon karo qofka qorsheynaya xasuuqa haddaba yaa ah dilaaga dhabta ahi od wuxuu mar kale si qarsoodi ah ugu laabtaa guriga fungus pop wuxuu ogaadaa in fungus pop ka tirsan yahay koox dilayaal ah kaboojiyaha dhexdiisa waxaa ku jira faro lafo iyo hadaagii dhibanayaal hadda waa la hubaa in fungus pop yahay dilaa waalan markii od albaabka kaboojiyaha xidhay ruuxda fungus pop ayaa si lama filaan ah usoo muuqata wuu ka xanaaqsan yahay od sababtoo ah od ayaa daaha ka qaaday sirtiisa saaxiibadiis ayaa doonayay inay xaqiiqada qariyaan sidaas darteed way dileen waxayna isku dayeen inay dembiga dusha ka saaraan od laakiin halkii uu saaxiibadiis uga aargoosan lahaa fungus pop wuxuu arkaa in wax walba khaladkooda yahay od wuxuuna doonayaa inuu dilo weeraradiisa tooska ahi ma shaqeeyaan laakiin wuxuu qasaa guriga wuxuuna ku sigtaa inuu qarxiyo od waa inuu raadiyaa tilmaamo kale markan wuxuu isku xiraa dhaawaca laabta fungus pop iyo tatooga bod ee ku yaala tatoogani waa isla kii simon gacantiisa ku lahaa sidaas darteed labadoodu waa wada howlgalayaal bod waxay u taagan tahay bringer of darkness waa koox cibaadaysata shar fungus pop waxaa dilay simon wuxuuna muddo hore dhintay maalintii od sheegay in fungus pop weeraray sababta simon ula yaabay waxay ahayd inuu ogaa in fungus pop mar hore dhintay hadda waxay u muuqataa in simon yahay qofka qorsheynaya xasuuqa magaalada od waa inuu helo marxaladan od wuxuu adeegsadaa awood kale wuxuu ugu yeeraa soo jiidasho maskaxeed wuxuu diiradda saaraa qofka uu raadinayo kadibna si aan qorshe lahayn ayuu wadooyinka ugu wareegaa awood aan la arki karin ayaa u jiidata bartilmaameedkiisa runtii wuxuu la kulmaa nin shaki leh oo u eg simon od si deg deg ah ayuu ugu ordaa oo dhulka ayuu ku ridaa laakiin markuu si fiican u eego wuxuu ogaadaa inuu yahay ofiir burn sidaas darteed saddexdooduba way ku lug leeyihiin markii burn maqlay od oo Chief Porter u sheegaya fungus pop isla markiiba wuxuu u sheegay simon taasi waa sababta simon u dilay fungus pop si uu u aamusiyo kadib markii od isku geeyo dhammaan xaqiiqooyinka wuxuu qaataa qoriga burn wuxuuna sii raadiyaa simon wuxuu maraa suuq weyn oo la yiraahdo Greenmont Mall meesha waxaa ka buuxa dad badan waxaa kasii cabsi badan ayaa ah in dhammaan shaqaalaha Greenmont Bowling ay joogaan wax yar ka hor od wuxuu ku arkay riyadiisa iyagoo la tooganayo waxay u muuqataa in weerarku halkan ka dhigi doono si dab ahna dhawaaq yaab leh ayaa kasoo yeedha saqafka suuqa bodox aan tiro lahayn ayaa qaylinaya oo meel walba ku yaacaya waxay sugayaan burburka suuqa masiibadani waxay dili kartaa boqolaal ama kumanaan qof makhluuqyadan tani waa casho dhiig leh si lama filaan ah qaylo ayaa ka dhex yeedha dadka qof ayaa ku dhawaaqaya inuu jiro nin hubaysan dadka oo dhan way argagaxaan oo cararaan laakiin dilaagu hore ayuu u xidhay albaabada suuqa dadku meel walba ayay isku dhacayaan dilaagu rasaas ayuu si waali ah u furayaa nasiib darro dukaanka jalaatada ee Stormy ayaa agta yaala dilaagu dhankaas ayuu u ridayaa rasaasta od wuu argagaxaa wuxuu kor u qaadaa qorigiisa si uu uga hortago laakiin bodox ayaa ku mashquuliya nasiib wanaag dilaagu rasaasta way ka dhamaataa od ayaa iska fogeeya bodoxka wuxuu toogtaa ninka hubaysan dukaanka jalaatada gebi ahaanba wuu burburay derbiyada iyo miiska waxaa ka buuxa rasaas od isagoo walwalsan ayuu gudaha u socdaa Stormy ayaa si lama filaan ah uga soo booday nasiib wanaag waxay ku dhumatay gadaasha miiska wax dhaawac ahna ma gaarin od weli ma nasan markii uu ogaaday wax cabsi leh wax walba weli ma dhammaan ruuxda leeta ayaa soo muuqata waxay u sheegtaa od inuu degdego od wuxuu ka qaadaa maaskarada ninka uu toogtay wuxuu ogaadaa inuusan ahayn simon waa Kevin ninkii madaxa bidaarnaa ee iska dhigay inuu eeyaha toogtay si uu u badbaadiyo gabadha xaqiiqdu waxay tahay in Kevin isagu sii daayay eeyaha kooxda dilayaashu waxay ka kooban yihiin 4 qof Kevin waa midkood hadda od waa inuu si deg deg ah u helo simon od ma garanayo halka uu aadi doono laakiin nasiib wanaag ruuxda leti ayaa hagaysa waxay u horseedaa goobta baabuurta la dhigto ugu dambayn ruuxdeedu waxay istaagtaa gadaasha gaari xamuul ah kadibna si tartiib ah ayay u libdaa od wuxuu furaa gaariga gudihiisa waxaa ka buuxa walxaha qarxa simon wuxuu bilaabay tirinta waqtiga wuxuu qorsheynayaa inuu qarxiyo Greenmont Mall oo dhan markuu arko od oo soo socda si uu u joojiyo wuxuu bilaabaa inuu rasaas ku furo od dhowr xabadood ayaa ku dhacaya maskaxdiisu way wareeraysaa laakiin wuxuu isku qasbaa inuu gaariga kaxeeyo wuxuu doonayaa inuu bamka ka fogeeyo magaalada simon ma quusto wuxuu ku dhegan yahay gaariga isagoo weli rasaas ridaya markii ay qiyaastii hal eber ilbiriqsi ka hadeen qaraxa simon wuxuu fuulaa gaariga laakiin od waqti kuma luminayo wuxuu ka boodaa gaariga si uu naftiisa u badbaadiyo simon iyo gaarigii waxay ku dhacaan god ilbiriqsigii xigay gaarigu si weyn ayuu u qarxaa ololku wuxuu ku fidaa godka oo dhan od markuu arko in wax walba degeen indhihiisa ayuu xiraa
markuu mar kale indhaha kala qaado wuxuu isku arkaa isbitaal. Stormy ayaa dhinaciisa joogta iyadoo walwalsan. Chief Porter wuxuu hore u xaliyey arrinta maydka Fungus Bob wuxuuna ogaaday runta ku saabsan 4 dilayaal. Waxay ku biireen koox shar ah iyagoo dhalinyaro ah. Kadib waxay si lama filaan ah u dileen qof waxayna ogaadeen inay jecel yihiin dareenka dilka. Si ay ugu fududaato dilalku, 2 ka mid ah waxay si ula kac ah ugu biireen booliiska. Waxay qorsheynayeen inay ka bilaabaan magaalada Picomundo kadibna si tartiib ah u kordhiyaan dilalka. Hadda qorshahoodii gebi ahaanba wuu fashilmay. Odd iyo Stormy waxay badbaadiyeen kumanaan qof. Qof walba wuxuu u arkaa geesiyaal. Chief Porter xitaa wuxuu u diyaariyaa guri cusub. Waxay waqtigooda oo dhan wada qaataan. Waxay cunaan jalaato badan, cabaan khamri badan, hurdo badan seexdaan, habeenkii soo jeedaan oo isdhunkadaan mar kasta. Laakiin maalin maalmaha ka mid ah, albaabka ayaa la garaacaa. Markii Chief Porter hadlo, wuxuu isku dayayaa inuu Odd la kulansiiyo xaqiiqada. Wuxuu doonayaa inuu ka gudbo geerida Stormy. Sababtoo ah weerarkii Grand Monmal, Stormy way dhimatay. Stormyada uu Odd la joogay waxay ahayd ruuxdeeda. Qalbigiisa gudihiisa Odd wuu og yahay runta. Laakiin xaqiiqadu aad bay u xanuun badan tahay. Xanuunkaasi aad buu u daran yahay, mana awoodayo inuu aqbalo. Laakiin Stormy waa inay dunidan ka tagtaa si ay ugu gudubto nolosha xigta. Kadib markii Chief Porter marar badan la hadlay, Odd ugu dambayn ilmada ayuu sii daayaa, wuuna aqbalaa. Wuxuu daawadaa ruuxda Stormy oo si tartiib ah uga sii durkaysa. Sanadkii 2016, Anton Yelchin, jilaagii matalayay Odd, wuxuu ku dhintay shil murugo leh. Wuxuu jiray oo keliya 7 sano. Taasi waxay siinaysaa dhammaadka filimkan murugo dheeraad ah oo aan erayo lagu cabiri karin.